السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. maanta meesha waxaan u joognaa arrin muhiim ah oo ka hadlaysa aabanimada. waa ogtihiin badankiin aabayaal baa tihiin. waxaan ugu jira nin maasha allah halkan isagana suun aabad noqon doona ilaahay markuu qoro. maanta su-aalaan isweydiinanaa oo aada u muhiim ah oo ka hadlaysa aabanimada carruurta iyo familiga. su-aashu waa English weeyaan, haddaad jeceshahay af English ku sheeg ama af Soomaali. su-aasha ugu horeysa waxa iska leh Abu Faarax. Faaraxow, the first question is, what does manhood mean and what is the role of the man in a family? haddaan usoo noqono dhinaca Soomaaliga, waxa weeyaan waxaa laga hadlayaa sidee baad u aragtaa macnaha ragnimada iyo ninka ragnimada sheeganaya roolkiisa wuxuu yahay iyo responsibilitygiisa markay noqoto qoyska. بسم الله الرحمن الرحيم. marka hore aad baad ugu mahadsantihiin barnaamijkan in aad nagu soo dhaweysaan. Soomaalida inkasta oo noloshii aan ku nooleen iyo hadda meeshaan ku noolahay kala duwan yihiin, aniga fikir ahaanteyda ragatinimada waxaa waaye waagii hore ilmaha markuu soo koraayo waxaa loo sheegi jiray inuu rag yahay oo adeeg looga baahan yahay. da-da markii la gaaray 15 oo kale Soomaalida waxay u aragtaa wiilka inuu qaangaaro nin rag yahay. kadib waxaa laga rabaa nin oo hawshii loo igmada ka soo baxa oo accountable ah. haddii ay tahay in xoolihii uu raaco oo hadduu reerka beer falata u yahay, haddii uu yahay in maaragtay beerta uu soo falo mise xoolihii uu raaco, depends nolosha say markaa lagu tiirsan yahay. inuu ahaado nin geesi ah oo go-aan leh oo maaragtay waxtar leh. marka halkan way ka duwan tahay noloshii xoolihii iyo wixii ma lahan, waa nolol kale, balse waa mas-uuliyad qofka ninka ragga waa inuu mas-uul yahay. qoyska markii aan kusoo laabano gaar ahaan ninka ragga ah waa ninkii ragatinimada waxaa waaye ninka qoyskiisa waxtar u leh. haddii uu aabba yahay, aabbihii ilmihiisa ka warqabo, haddii ay noqon lahayd dhankii dhaqaalaha, haddii ay noqon lahayd caafimaadkii iyo horumarka qoyska, ninka ragga haddii uu dabari karo oo uu ka warhayo, waxaan dhihi karnaa waa nin rag ah. balse haddii uu dayaco mas-uuliyaddii ka saareed qoyskiisa, taasi ragatinimo ma ahan, waa mas-uuliyad daro. aada ugu mahadsan tahay. qofkii jecel inuu ku daro ragnimada iyo qoyska sidii loola dhaqmi lahaa waad ku dari kartaa. waad ogtihiin nin walba hal waxaan ku darsan lahaa manhood, it could have a different definition in every culture. صح. For example, like in Maasai culture, like when you are a manhood, you gotta go kill a lion, you know. So like every culture is a different. In America is a different. Like the manhood is in America, like when they reach 18 and they graduate from college and they get their own responsibility, they get a job. That's how they are like a manhood. Soomaaliya dhaqankiina markaan Soomaali aan ka hadlayno sidii walaalkayga uu sheegay oo kale si fiican oo uga hadlay. waxa waaye ninka ragga markuu noqonayo waa markii oo adiga qofka qaangaar oo noqdo kale ma aragtay oo ninkii nin weyn noqdo oo guursado, markaas la leeyahay ninkan waa nin rag. wili waxaa la sii dhihi karaa ninkan waa nin rag, nin oo markuu noqdo karti leh oo gurigiisa u shaqaysanayo, bariiskiisa soo dhacsanayo. markaas kala la dhihi karaa that's the manhood. markaas waa la leeyahay ninkan waa nin rag oo karti leh. halaas baan jeclaan lahaa inaan ku darsado aniga. aad baan u mahadsantahay. walaalkay Faarax suu sheegay waad aragteen, uu ka hadlay dhaqanka Soomaaliyeed ragnimada iyo responsibilitygiisa waxa laga rabo. walaalkay Saacidna uu ka hadlay. waad ogtahay culture walba way ka duwan tahay culture-ka kale. maanta waxaan ka hadlaynaa dhaqankeena iyo culture-keena iyo dhibaatooyinka na haysta Soomaali ahaan dadkeena dhexdeeda. so marka insha Allah waxaan u gudbi doonaa su-aasha labaad. waxa iska leh Cabdo. waxaan ku weydiin lahaa su-aasha English baan ku sheegayaa. waxa weeyaan how have you fathered your children differently through each stage of their life, children, teenager and adult?
su-aashan macnaheedu waxa weeyaan waxay ka hadlaysaa tarbiya ahaan oo kala because carruurtu markaad aabba tahay ilmaha ugu horeeya uu dhasho children markay yihiin sidaa ula dhaqantid way ka duwan tahay markay tahay teenagerna markuu ka gudbo uu noqdo adult waa different tarbiyad so marka adigu aabba ahaan noo sheeg carruurta stageyada kala duwan iyo sidaa ula dhaqantay inay wax isbedel aad aragtay naftaada dhexdeeda mise inay adigu kugu adkayd ilaa qofkan adult ka noqonayo dhaqan ahaan waa garanayna carruurta anagu aabbayaasha qaar badankood ma dhihi karo qaar waa kii childrenka ilaa adultka the same buu leeyahay waa kiisi yaraan marka bal nooga yara sheekay arrinta insha allah bismillaahi raxmaani raxiim horta marka hore carruurta markay dhashaan iyo markay dhashaan ay yar yihiin horta waxaa ma garanayo mogtahay sax laakiin markay soo koraan adiga 4 jir ilaa 5 jir mar walba waxaa loo baahan yahay hadda horta aabanimada inaad kasoo aabanimada aad tustid sax ma fahmino and the second time markay 10 sano soo gaaraan waxaa loo baahan yahay wax walba oo kanna waa xun yahay kanna waa fiican yahay inaad ugu sheekaysid sax haddaad saas ku korisid cunugaas waxaa laga yaabaa 15 markuu gaaro aad kusii wadid wixii xun iyo wixii fiican u kala sharaxid markano waxaa laga yaabaa cunugaas inuu oo meel fiican ka soo baxo laakiin haddaad cunugaas aad iska dhigi tirtid aday shaqadaada aad raacdid dhanahaada aad ka raacdid cunuga aad time siinaynin aad ka socotid cunugaas waxaa laga yaabaa hataa iskuolka mar walba waxaa la rabaa inaad la socotid every week haddaad samaysid haddaad janis helaysid every friday iskuolka tag meeshuu maraayo waxbarashadiisa aa ogaatid hataa cunuga uu dareenaa gelaya cunug wuxuu dareemaa aabihiisa inuu waqti gelinayo wuxuu sii dareemaa wuxuu rabaa inuu meel wuxuu isleeyahay aabaha wuxuu rabaa inuu meel fiican ku gaarsiiyo laakiin haddaa adiga iska dhigi tirtid cunugaas aan jaanis siinaynin hooyada kaligeed ku jees badanaa maanta waa aragtay iskuulaadka hooyooyinka noogu horeeya maxaa ugu wacan because aabaha waxaa loo baahan yahay hooyadana say waqti u siinayso adigana waqti u sii laakiin haddaa iska dhigi tirtid cunugaas waxaa laga yaabaa inuu oo faraha ka baxo والله أرن مهمة تابتي واحد شعلها رجع كلامنا كسر عليه because all of you أنا ريتش إذا عندها نيجي إذا emotional أبني ماذا بنيجي شرتا أنا خاصة ملبا إيجا تابتي محبة عاي أنا جا أبيج ما أركن أنا جا هالسنة جرو أبيج الانتي الله نحرس مركز دراد ده ما أركتي مركز لقى هذا لو أبي وحاس درين كلام درين ما يا صح مركوات الله اسمع ربنا قدر سلام aniga aabbo waxaan ahay 5 ciyaal ah ilmaha mar walba heer bay soo maraan mar way yar yihiin oo baaragtay meeshii la dhiga biska ma qaadi karaan waa in la qaado oo aad adigu la hadashid kuma jawaabi karaan marna way ku qoslayaan way ku dhawla cadeynayaan mar way gurguuranayaan mar way soconayaan mar walba baahida ilmaha way isbedeshaa mararka qaar su'aal ku weydiinayaan waxay ku leeyihiin wax walba oo maskaxdooda ku soo dhacay ku weydiinayaan marka mar walba heer walba ay marayaan ilmaha waalidka waa in uu la socdo oo la jaan qaado kow waa in uu diyaar garooba oo samir uu lahaado labo waalidka naftiisa ilmaha ayaa wax bari karo waxaad ka baran kartaa ilmahaaga isbedelka ku dhacayo iyo baahidooda si isu bedeli karto oo mar walba ismeeshooda u joogaynin isbedelka ku dhacayna waa mid xawaare saa'ida ku socda marka in aad su'aalahooda ka jawaabtid in aad samir u yeelatid aadan meeshii daraad ay joogeen sidii aad ula dhaqmaysay oo aad dhahaysay haddii aad markii aad amarkaaga diidaan time out aad gelinayso aad u sheegaysay in wixii wax iska bedelaan oo mararka qaar ilmahaaga aad la sheekaysatid oo maaragtay aad waxa ay sheegayaan aad dhageysatid in taas waxay siinaysaa kalsooni ilmaha ay ku abuuraysaa inay kalsooni helaan in ay saaxiib kula noqdaan mar walba su'aashooda markaa ka jawaabtid oo aadan ku ceebeynin xitaa waxyaalo qaar oo maskaxdooda kusoo dhacay oo filter kuma samaynayaan waxaa loo baahan yahay waalid ahaan
in adiga wixii xunna wixii ay ku xun yihiin aa u sheegtid aabo waxaas iyo waxaas way xun yihiin sidaa iyada ku xun yihiin reasoningka waa inaa u sheegtid Sax. haddii aad dhahdid aamus waxaasi way xun yihiin why way xun yihiin sabab ilmihii sabab buu u baahan mar walba sidaa iyo sidaa sababtaas u xun yihiin waa inaad dhahdid mar walbana ilmihii ay kalsooni kugu qabi karaan si ay qof kale su-aashii aysan u weydinin oo adiga ay ku weydiiyaan hadhow xitaa haddii wax kale oo bulshada ay jeclaysan mise oo soo dhex maraan meelay ugula noqdaan ay leeyihiin taasna waxay mustaqbalka markay weynaadaan kow kalsoonida dhisaysaa oo ilmaha waalidka engaged waalid oo engaged oo xiriir fiican ka dhexeeyo waa cilmi baaris badan oo la sameeyay waxay sheegaysaa kow in ilmaha iyada ilmaha kale ay dhanka waxbarashada kaga horeynayaan kaba soo qaad 15 daqiiqo maalintii ilmahaaga haddii aad dhageysatid un inta aadan u jawaabin isbedel weyn inay ku sameynaysaa xabsiyada ilmaha ku jiro xabsiyada ka yareynaysaa in waxbarashada ku hormaraan in nolosha xitaa markay weynaadaan mashaakilaadka noloshooda soo wajaha in ay xal u heli karaan sababtoo ah foundationkoodii soo dhisnaa waalidiintoodii engaged aabbihi hooyo hadday ahaan lahayn labadaba gaar ahaan aabbaha in saameyn weyn ay ku yeelanaysa ayaa cad صح ما aad baad mahadsan tahay runtii aad baad u taabatay different stageka and waa muhiim as sidaa sheegtay research wuxuu tusayaa qofku markuu engage yahay waalidku ilmaha lifekiisu ka qayb qaato isbedel inaad arkaysid waa sida dee markaad geeda abuuraysid soo maa geedka wuxuu u baahan yahay biyihiin lagu shubo in maaragtay seedka isaga daadi maaha seedka meesha bal waxa weeyaan inaad geedka ka warhaysid sidii mirihiisa uga faa'iidi lahayd soo maa runta geedka intuu yar yahay la toosiyaa adoo mar way oo qalacdo asagoo weynaaday waa adagtaa inaad toosiso moogtahay waa runta maanta dhibaatadan haysatana waxa weeyaan geed weynaadaan rabnaa inaan toosino so waxaan dadka kala dardaarmayna waxa weeyaan ka qayb qaado activity-ga carruurtaada markay yar yar yihiin halkaa ka bilaabo aad aad mahadsantihiin su-aashan saddexaad waxaa iskale walaalkay saacid adaa leh su-aashan waxa weeyaan what have you learned about yourself through parenting yeah maxaad ka baratay intii yareedad awaalinimada ahayd because weli nin yar baa tahay mar raba inaan kaa dhignay aniga waxaan leeyahay 5 caruurood maasha allah midka ugu yar waa 3 bil midka ugu weynna waa 10 sano maasha allah markii kow oo caruurta la dhalayay yani waxaan iska ahay sidii runta hadaan u hadlahay mas-uuliyadda hooyadii aan u dhaafi jiray sax aniga maskaxdeeda waxaa ku jirtay haddaan mar banaankii kasoo shaqeeyo oo guriga ijaarkiisii iyo biilkii iyo wixii laga raba haddaan kasoo keeno guriga aan ka baxo waajibaadkayga waa ka baxay wax kale aan ku khasbanay male caruurtan celceliskooda iyo wax walba ayadaa ku shaqo leh sax marka sidii marka adi muddo kadib noloshii way isbedeshay waxaan ogaaday hooyo kaligeed inaan wax toosin karin inaan aniga laga baahan yahay qaybteeda inaan kasoo baxo ya marka soomaalida waxay leedahay far kaligeed fool ma dhaqdo maaragtay marka laba qofka loo baahan yahay caruurtii koriskooda ilmihii marka waxaan is ogaaday hadda aan leeyahay inaan aabbo anigoo isfaalinaynin aabbo fiican aan ahay oo caruurteeda ani saaxiibo badan ma leehi waqtiga faraaqada aan leeyahay waxa waaye caruurteedaan la joogaa caruurteedaan oo aan la fiiriyaa waxay u baahan yihiin meeshay rabaan iskuulkii iyo caruurtii marka stageka haddaan ka hadlo markii koowaad waa iska teenager iyo marxalad oo waxay ahayd oo malayacni adiga baashaal iyo mas-uuliyadda hooyadii aan ku dhaafi jiray markii dambe aday cunugii labaad cunugii saddexaad waxaan noqday aabbo mas-uul ah oo korista caruurtiisa wax qayb weyn ka qaato hadday noqoto in laga caawino dhaybarkii in laga bedelo hadday noqoto dharkii in laga bedelo hadday noqoto cunugii in caalada siiyo adiga waxyaalo badan marmarka qaarkood hooyadii ya sax marka saas aan ka dhihi karaa aniga nolosha waxa iska bedelay marka waa halaas baan kusoo xirayaa والله aad aad mahadsan tahay as many of you are aware we have Somali English speakers and also they only comprehend English and as we can see we are speaking Somali in our natural authentic language which is a good thing to do but also we got to help the young fathers and mothers who are English speakers or can only comprehend English so our goal is forgive us we will
we'll mix it up. Yeah, mix it up a little inshallah. bit. We'll do more English, as my brother said. What I said, if I summarize it, Yeah, in English, please. I was talking about he asked me the stages, like when I've been father for a long time, and I told him I have 5 kids. My youngest is 3 months old, and my oldest is 10. So when I was a young father, I was irresponsible. I wasn't there for my kids. So I left the whole responsibility for my wife. So I was like thinking I had like an old mentality. I'm saying if I'm providing the food, if I'm working, I'm paying the rent, all these Yeah. expenses, I don't care about the taking care of the kids in the house. So that's her responsibility. So as I grow up and I get more children, that mentality changed in my life. That's good. And that's the struggle we see with many young men today, young fathers. You know, speaking of that, I went through the same stages. They say you become who your friends are. Yep. And if you hang around people with the same mentality, it's not my responsibility, it's the responsibility of the mother, I'm the provider for the house. Yes. And that's the thing that creates the issue with children that are having emotional issues. It's because of the father is not playing a role to help that young man to become into that manhood. You know, how can that young man become that manhood, or how can we change the cycle? If there's no father figure. Yes, or if the fathers are not active. So I can see what you're talking about there. So, and then one thing like most of the fathers needs to know is, especially if you got boys, they copy whatever move you make. Yeah. Whatever thing you do, they are watching you. Even the way you walk, if you look your son, he might gonna walk like you, like Yeah. you're trying to be like his dad. Imitating. So he's imitating like. So when you are around your kids or around your children, you got to be more careful what you're doing, what you're saying. So if you tell your son or your daughter, don't lie, and you're right there lying, so what they gonna think? That's true. So they want to see action. Yeah, positive action. Yeah, positive action. All right, I do appreciate that, Brother Saeed, for answering that question in both languages, so that our audience take advantage of this talk. The next one is, it's basically open to all of us. This is a question that says, how do we break the epidemic cycle of fatherlessness, and fathers who are in the house but not present, engaged emotionally, not available? So, how do we break this cycle? Sidee baan u jeednaa maaragtay cycle-kan aan ku jirno, aabbaha wuu joogaa haddana ma joogo, Mucho. because actionkiisa iyo dee dhaqdhaqaaqiisa. Also, so how do we break this cycle? Because this is something that's affecting our Yeah. community. I mean, it's not one family. Yep. I'm talking about, if there's a survey, it's pretty big. Yeah, majority. Like, Yeah, we have it's a to- high number. Yeah. We have to acknowledge that. How do we break that cycle? This cycle of Abba is not part of the kids' lives. I mean, he's physically there, but he's emotionally gone, right? Yes, mentally checked out, physically there. Yeah. I mean, is lack of education, Uh-huh. and the more he's involved in his kids' lives, the more he finds out about, who these kids are, who they're hanging out with, or what they're up to, and they have to adapt to the environment that their kids are in. So, and fathers, they're always stressed out about work and all that stuff, right? Yeah. But the system Mhm. also, the system has a lot to do with it. The government, they placed all especially the African Americans family, in a poor neighborhood. So the dad and the mom, they're worried about the bills and all that stuff, and the kids, they're in the environment they're in bad environment. They're hanging out with, no good friends. They're in a bad school. So in order for that to stop, first they have to fight the system. Mhm. That's not easy. And then the other thing is just the father to be aware of the environment and get involved in that. Because if the kids don't have no role model from the house, they'll find it outside. Okay. So the more you're aware of, and the more you learn about what your kids are involved in, that's when you get more involved in your kid's life.
they usually get involved is like when they get locked up. That's when they wake up, right? And that's when it's too late. So as a young father, you're just educating yourself and so as a young father, soon to be father, inshallah, and you see the cycle of no father figure in the house or fathers are not engaged, what is some things that you're doing to break that cycle? Like as Abu Bakr, some things that you do so you hope you don't repeat the same cycle. Because one thing we've seen in our community is, yes, we understand the system plays a role. Yep. For the black man or for the father, especially in the low-income neighborhood, to be outside more to provide for the family, in return which created that void. So as a young man, what are you doing differently so that when kids come, inshallah, that you're not repeating the same mistakes of the previous fathers? Right now, just attending more programs like this and also being part of my siblings' lives and learning from my dad and my mom and from everything that's going on in the community. Okay. Because there's a lot going on in our community right now, especially the neighborhood that I live in. Okay. Yeah. So Abdo, arrintan ka hadlaysa aaba la-aanta inkastoo aabii guriga joogo haddana weli waxa leeyahay ilmihii aaba ma laha siduu agoon u yahay ilmihiina agoon maaha. So marka maxaad u aragtaa cyclekan every 20-30 years sheekadu isma bedelayso, maxaan sameynaa as aabanimo aan sheekadan ku bedelnaa, maxaa keenaya aad adigu u aragtaa? wallaahi horta taas waa arrin weyn koodhe. aaba la-aanta ilmaha haysato waxa waa horta barbaleenka hadduu guriga bato oo familka barbaleenkiisa bato sax waxaa aabihii fiican oo iska dulqaadana sax kan dulqaadka lahayna waxa waaye oo ka dhaqaajina. laakiin waxaa fiican mar walbo haddaa aaba tahay oo ilmo dhashay famil waa la isku dhacaa. familka mar walba waxa waaye ninkii naagta markay isqabaan heshiisna ma ah heshiisna waa fahantay maana sax. laakiin haddii barbaleenka oo bato ayaga ay kala tagaan oo meesha ay kusoo kala dhamaatay hataa in case ay kala tagaan waxaa loo baahan yahay mar walba ilmahaada saa shalay u ogeed inaa u ogaatid. waa runta. haddii laakiin aad dhahdeed naag kalaa helaysaa ilmo kalaa dhalaysaa adigana ma ku fiicno caafimaadkaadana uma fiicno. sax. ma fahanta waan fahmay. mar walba waxa waaye horta haddaa ilmo dhashay mar walba dee naagtaada hataa isku dhacdiin aa kala tagteen beri ilmahaasaan iska keena. ma fahanta sax. laakiin mar walba aniga waxaan dhihi lahay aabbaha oo guriga ka maqan waa mid oo waxa waaye kaas go-aan gaaray waaye laakiin go-aankiisa go-aan fiican ma aha. sax. waad mahadsan tahay cabdo. intaasaan kusoo koray. walaalkeen public health adaa ka shaqeeya caafimaadkii waxaa faarax oo caafimaadnimo waan ognahay qoys walba dhibaata ka buuq iyo divorce ku iska badan yahay communitygeena. Sometimesna waxaa laisku haystaaba kii guriga joogayba ma joogo, aabihii guriga reerka la joogay ma joogo. imikana waxaa ka dhacay divorce badan dee taasina arrintu way kasii daraysaa. So what do you think would help to break the cycle? What are some answers? Things we can do to break the cycles of aaba la-aanta? horta aad baa umahadsan tahay. annaga Soomaali haddaan nahay waxaan nahay dad soo burburay oo burburka dhan walba uu ka haleelay. hadday noqon lahayd qoyskii, hadday noqon lahayd dalkii oo burburay, hadday noqon lahayd dhaqankii. marka halkan markaa imaanay waxyaalo badan oo annaga aanan ka warhaynin oo waxyaalaha qaar ay ka mid yihiin in maskaxiyan xitaa inaanan dadka qaar aysan u fiyoobeen badan. markaan meesha la imaanay annagoo annaga nafteeni aanan baranin ayaan isku daynay inaan dhaqankii aan la soo darisnay aan ka mid ka nahay inaan la qabsano. marka dhibaatooyin badanaa ka imaaday annagoo dhaqankeenii wadano iyo kii halkan joogo wixii baa isdiidan.
kow qoyska waa as-aaska jiritaanka nolosha sideedaba haddii uu qoyska fiican yahay bulshadana way fiican tahay kow waalidka waa in ay ogaadaan tallaabo walba oo ay qaadanayaan cawaaqibka ay ku yeelanayso ilmahooda mar walbana ilmaha in interestiga danta ilmaha danta waalidka ay ka hormariyaan taas micnaheeda ma ahan haddii ay wada joogaasi uu dhib u keenayo ilmaha oo in la wada noolaado uu ilmaha dhib u keenayo waalidka mid banaanka inuu aado waa sababto ilmihii dhib u keenaysaa balse inta hadda la ogyahay waxaa waaye waalidka markay wada nool yihiin ay nolol fiican oo xushmad leh oo ilmaha dantooda la fiirinayo ay ku wada nool yihiin in qoyskaas uu caafimaad qabayo siduu cabdow sheegay soomaalida waxay dhahdaa nin inaag nabadna ma ahan heshiisna ma ahan fikirkaasi waa fikir hore oo waktiga hadda la joogo oo aan la jaan qaadi karin labada qoyska ku wada nool heshiis inay ahaadaan waa qasab waa muhiim jiritaankii qoyskaa ku jiro haddii farqi u dhexeeyo oo labadii qof ay waa in arrintoodii ay ku xalistaan wada hadal iyadoo aanan faraha laisku taagtaagaynin ilmaha hortooda annaga waddanka waxaa ugu imaanay ninkii inaagta haddii wada xanaaqaan waxaa laga yaabaa in ay ilmaha ka tagaan si arrinta iyada ah ay ilmaha aysan u saameynin ilmaha maskaxdooda waa maskax soo korayso oo u baahan in la dhowro oo xumaanoo idin laga reebo hadday ahaan lahayd erey hadday ahaan lahayd ficil waa siduu walaalkeen u sheegay ilmaha way annagayna daawanayaan muraayadii ay iska dhex arkayeen xitaa mararka qaar suusha waa run wiilkayga mararka qaar waxaan arkaa asagoo waxyaala aniga aan sameynayo mararka qaar weydinaya xitaa markii oo deviation uu jiro isbedel uu jiro aaba waxaa saasa isku ogeynaysa saasna waad sameynaysaa maxaa isbedelisay maamahdi hore maxay geelkii weel meesha mara kan yarna waa mara exactly marka si cycle-ka loo bedelo waxaa loo baahan yahay bulshada in wacyigelin badan la sameeyo oo dhanka culimada dhanka hay-adaha iyo dadka mas-uuliyiinta u qaabilsan in la ogaado in bulshadeena si ay u horumarto qoysaska loo horumariyo in danta guud laga horumariyo danta ilmaha haddii la horumariyo ilmaha waa mustaqbalka bulshadeena waa macalimiintii waa hogaamiyaashii aan mustaqbalka ku tiirsananayno markii laisku soo wada duduubo waxaa waaye waalidiinta labada waalid oo wada shaqeeyo ilmihii noloshoodii si aan hor u sheegay og la socda haddii hooyada guriga ay joogayso aabaha banaan kasoo shaqaynayo in nidaam ay wada og yihiin oo shaqaynayo waa inuu jiraa in waalidka ilmaha waxbarashadooda ay maaragtay ka warhayaan oo ilmihii waxbarashadoodii meesha maraayo hooyada inay ka warhayso aabihii inuu ka warhayo ilmihii maanta maxaad soo baratay in waqti yar lala qaato lala sheekaysto balse sheekadii hore ee soomaalida aan ku nooleen ilmaha caloosha loo buuxinayay dugsi aadaa la dhahayay habeenkii ayagoo daalan bay soo seexanayeen kubad bay iska aadayeen sheekadii ma shaqaynayso marka nolosheeni waa inaan wax ka bedelo oo aan wacyiga jiro iyo meesha aan ku nool nahay sida looga nool yahay aan u noolaano so waxaad leedahay waa in laga wada hadlaa arrimahan anaga noqoseeya especially as a community aabayaashana laga yara program loo sameeyo iyagoo u baahan yihiin cycleka sidii loo jebin waxaa loo baahan yahay kuwa soo koray in la baro so marka waxay ku xidhan tahay hay-adaha masaajidada in arrimahan aad qorshaha looga shaqeeyo because wax isma bedelayaan I think it's a cultural thing wax culture-ka waa dhaqanka Soomaalida waa la bedeli karaa waa la bedeli karaa culture evolves American culture has evolved صح yep you look from the 50s 60s 70s things are evolving even Somali culture is evolving right? If you go back home, there's things that we've never done in the past that we're doing now. So what we need is more programs, but we need counseling between issues. If the father's not engaged, maybe attend programs, how to be a father, how to be a parent. You've heard of programs where, I've seen it before, it says, you want to learn how to be a good parent?
Those how programs to are be a available. good husband. There's a lot of programs like that. So the fathers, we need to promote more programs like this so we can break this cycle. Yep. And forget about the mahma. I mean, even though it's good wisdom, but we gotta also think reality. Yes. You know, Igal Shida said when his little child crawled at him, Yeah. he told his wife, he said, "Nahiblaye kaalay, ninkan iga qabo, ragga liskuma sii daaye," meaning stop the child from coming at me, because he doesn't want to deal with it. So my mother says, "Ragga liskuma sii daaye, ninkan igu soo socda iga qabo." So I think that's the practice that we see today within the Somali fathers, And that's what where we they need to think change. changing diapers, attending kids' school parents meeting, that is not part of the parents, the father's duties. So we need to change that mentality. Is that what we're saying? Yeah, my brother, like, what do you say? Like, if some of your friends see you, like, doing, like, changing a diaper, Ah. they make fun of you. Yeah. I swear, wallah. But what about the child's health? They don't think of that. They make fun of you. But then, as good fathers, we have to be what? Promote Promote. being a good father, because it's not only for your household. But you see a white person in the airport Yeah. bathroom changing diaper. Yeah, Amen. that's fine. You see, yeah. That's waa Out the malls. waa mas-uuliyadaaday ku tusaysaa, you know, in aabbaha dheebarka uu bedelo oo Waqtiga la joogo waa qasab. waqtiga la joogo waa haddii markii adiga aad baahidaa ku qabato Sax, yep. waa inaad hawsha diyaar u tahay. Tan kale waxaan ku darsanaa barnaamijka asaga sida cycle-ka lagu bedelayo Sax. oo aabbaha guriga ka dhiman Sax. ka maqan waxaa ka mid ah in aan iska dayno fikirka ah Sax. halkan inaanan deegaan ku ahayn. Sax. kuwa badan oo annaga naga mid ah waxay aaminsan yihiin in halkan laga noqonayo oo dib loo socdo. Sax. anigoo idil reer guuraa baan ahaan jirnay hadda haddii aanan guurguurayna xitaa maskaxdan geedi Ha. nagaga jira. We are always on the journey. tan kale dib markaan ugu noqdo ragatinimada Ha. ragatinimada waxaa waaye ninka hadda realityga markii laga hadlo ninka hal naag qabo Ha. oo ilmihiisana mas-uuliyaddeeda qaado reerkiisu u fiican yahay. Ah. Waa sax. haddii adigoo halkan ilmihii mas-uuliyadoodii dayacay Ah. aad ii sheeg maxaa la dhahayay africa islaamkale aad ka soo aroostay Sax. kuwii africana waa dayacan yihiin Ah, kuwana kuwana dayacan. waa dayacan yihiin marka aabbaha waa in la ogaado horta nin naaga badan micnaha maxaa waaye ragatinimada ma ahan inaad naaga Badsatid badnaatid. dumarka. dumarka aad badsatid ragatinimada waxaa waaye in qoyskaaga waxaa wax ku tahay in uu qoyskaaga yahay muraayadii iska dhex arkayso qoyskaaga hadduu fiican yahay San yahay, ah. adigana waa fiican tahay Sax. qoyskaagii haddii aad lugta ku dhufatayna Ah. wax baa khaldan marka taas markii laga soo aan ogaano muhiimadda inay tahay Ah. tan kale bulshadeena weerar baa ku socda realityga markii laga hadlo oo dhan walba ka imaanayo oo dhaqankeenii iyo diinteenii iyo waxyaalo badan especially social media markaad tegtid waxaad arkaysaa dad dana gaara leh Ah. oo ayaga iska dhex noloshoodii waxaa laga yaabaa inay ku khasaareen Ah. noloshii khasaaraheedii mise qoyskoodii ka burburay oo ragna leh haweenna leh u isticmaalayo Example-ada xun. exambalada xunxun ee dadkaasi si kastaba ha ahaatee ee qoyskii ka burburay mise wax ka halaabeen Ah. ciladay leeyihiin ma lahan waxaa laga yaabaa maslaxadaba sidaa inay ku jirtay balse in arrinkaa asaga ah aad ku generalize garayso Dadkoo dhan. bulshadeeni oo aabbayaasha oo idil aa dhahdo waa aabbihii way xun yihiin aabbaha ilmaha noloshooda kama qayb qaato haddana haddii aad haween tahayna aad dhahdo nimankii gabdhi nin haddaad tahayna haweenku way xun yihiin Ah. naagihii way isbedeleen yaa fiican. marka naag walbo waxaa waaye sibay u nooshahay nin walbana siduu u nool yahay Ah. marka adiga noloshaadii dadkii kale inaad ku dabaqdid Ah. waa laga fiican yahay marka arrintaa iyadana bulshada inay ka foojignaato dadka qaylida badan ee ragga iyo dumar kale oo qaylinayo mar walbo oo codka dheer ee bulshadeenii fikir khaldan ka gudbinayo annagii nafteenii qoysaska maskaxda madaxa isu gelinayo waa in laga foojignaato The brother said it well. He summed it well. He said programs are needed. Number one, right? Yes. Educating so we can change this cycle. You know, this epidemic cycle that's going on. Yeah. Also, we talked about engagement. We talked about that, which is another big thing. As a father, you have to be engaged. Even though you have all these challenges, still you have to be engaged because this is your investment. This is your future. And also, we talked about let's not generalize the entire community. That there's a lot of success stories, that a lot of great fathers
right, out there doing some good work, and we need to highlight those success stories Yep. so that people can follow those examples. So I think that's what we've all There decided. is still a problem that we have to talk about it. Like Yes. there is a problem existing in our community right Bring now. awareness to to the the problem. problems. Okay. Well, aad old mahadsantiin. Now we're gonna go to the next question, inshallah. It is, can a single mother teach her son how to be a man?